السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركل أيو برنامج كعيارها نكسو قد بينه كعالتوي شو qodobada ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah kooxda Chelsea oo waqtigan xaadirka ah doonaysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara Lazio sidoo kale Roma ayaa iyana doonaysa inay ku bedesho Dybala booskiisa ninkii u buuxin lahaa kaasi oo ah Wayne McTominay qodobada iyo kuwa kale ayaan idinku soo gudbinaynaa qodobadahan ciyaaraha ee ku soo dhawaada kooxda Chelsea ayaa waqti xaadirkan wada hadal kula jirta weeraryahanka ka soo jeeda dalka Argentina kaasi oo u ciyaara kooxda Roma waa Paulo Dybala sidoo kale isla Chelsea wada hadal kale ayay kula jirtaa weeraryahanka khadka dhexe isaguna uga ciyaara SS Lazio kaasi oo loo yaqaano Milinkovic kooxda Roma ayaa iyana doonaysa inay ku bedesho Dybala booskiisa ninkii u buuxin lahaa kaasi oo ah Wayne McTominay oo isagu ka ciyaara Manchester United laacibkan ayaa ah weeraryahan khadka dhexe waxaana ciyaar wanaagiisa aad looga dhaxarkay isla reebkii koobka Yurub kadib markii uu dhaliyay 3 kulan 2 gool kooxda Arsenal ayaa in muddo ahba kula jirtay laacibka Jeremia Frimpong una ciyaara kooxda Bayern Munich wada hadal Bayern Leverkusen waa laacib ka ciyaara qaybta difaaca waxay u muuqataa in kooxda Arsenal uu xiriir fiican dhex maro waa ninka Arsenal u geesisanaa xagga dagaalka waxayna ku gadatay 25 milyan laacibka Shaka ayaa ahaa nin aad uga dhex muuqda naadiga Arsenal kulamadeeda ciyaareed waliba xilligii dhamaaday Shaka ayaa dhahay Arsenal waa qalbigayga waa dhiigayga waana kooxda aan ciyaaraha uga fariisan doono marka la gaaro howlgabkayga Arsenal Shaka ayaa hadeer toos ugu wareegay Bayern Leverkusen maantana waxaa laga yaabaa inuu maro caafimaadka dhanka kale kooxda Inter Miami ayaa la wareegaysa weeraryahankii hore ee Real Madrid Eden Hazard waxaana aad looga yaaban yahay in kooxda ka dhisan Mareykanka ama USA ay qaadato isla uu ku qanco sidoo kale waxaa hore ay ula wareegtay laacibkii Messi hadeerna waa Hazard kooxda Real Madrid ayaa ballan qaaday 200 milyan inay ku bixin karto Kylian Mbappe taasi oo ay u sii dheer tahay lacagta gunnada ah weeraryahankan Faransiiska kooxda Tottenham waxa ay qandaraas u saxeexday Harry Kane in uu toddobaadkii qaato 200 kun oo giniga Ingiriiska laakiin ciyaaryahankan Harry Kane kuma qanacsana arrintaasi tababarihii hore ee Tottenham ayaa yimid kooxda Chelsea si uu layliyo waxaanu doonayaa inuu si farsamaysan uu kula soo wareego Harry Kane oo maalmahan suuqa ku jira kaasi oo ay aad u raadinayaan kooxo waaweyni waxaana ka mid ah kooxaha doonaya naadiyada Man United Real Madrid Bayern Munich PSG laakiin ayaa laga yaabaa inuu u wareego Bayern maadaama ay Man U ay aad u doonayso in muddo ah laakiin ayaa ahaa ninkii labaad ee xil ciyaareedkii hore u goolo dhalinta badnaa kaasi oo ka galay kaalinta labaad Newcastle United ayaa rajaynaysa inay 35 milyan oo pound ay kula wareegto garabka Leicester City ee Harvey Barnes iyagoo saxiixiisa ku garaacaya Aston Villa iyo West Ham United Kylian Mbappe ayaa la filayaa inuu xagaagan ka tagi karo PSG maadaama uusan qorsheynayn inuu kordhiyo heshiiskiisa sanadka dambe ee 2024 ka dhacaya PSG ayaa aaminsan in Mbappe heshiis sanadka dambe ah la sii gaadhay Real Madrid iyagoo xagaagan haddii uusan heshiis kordhin samayn ka iibin doono kooxda lacagta ugu badan ku soo dalbata cidda ay tahayba sida uu sheegayo wargeyska The Sky Sport Mbappe dooqiisa koowaad ee haddii uu u wareegayo Premier League ayaa noqon doonta Arsenal balse 40 sano jirkan ayaa ka baxsan dhaqaalaha ay awoodo kooxdaasi saas waxaa sheegay journalka Independent Joe Felix ayaa xiiseynaya inuu ku biiro PSG balse sii joogi karo Atletico Madrid oo 100 milyan oo euro ku doonaysa iibkiisa Inter Milan ayaa kor u qaadaysa isku daygeeda saxiixa goolhayaha Tottenham ee Blashka kaga tagay ee Hugo Lloris xilli ay suuqa ugu jiraan bedelka Andre Onana oo ku wajahan Manchester United Borussia Dortmund ayaa isha ku haysa xaaladda garabkeedii hore ee Jadon Sancho kaga jiro Man United walow la fahamsan yahay in 23 sano jirkaasi doonayo inuu sii joogo Old Trafford saas waxaa ku warantay wargeyska The Sky Sport ee ka soo baxa wadanka Jarmalka Atletico Madrid ayaa iyana tababaraheeda Diego Simeone ayaa dalab dhaqaale fara badan ku diiday kooxda Sacuudiga ah ee Al Ahly
si uu atleti u sii joogo. ugu dambaystii mason greenwood 18 bilood ee uu ka maqnaa kubadda cagta ayaa soo dhammaan karta iyada oo kooxda Atlanta qaab amaaha ay ku doonayso Mirror. intaasi ayaanu maanta ku soo gabagabeynaa qubinay ciyaaraha kala socoteen gacaltooyo show intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono because City are on a different plane. De Bruyne, Harry, back by McTominay! Red letter day! He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny, hit by Saka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! Wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in!